هاي maanta waxaan wareysanaynaa Xuseen oo gudoomiyaha sportska wadanka UK khaas ahaaneed Wembley. Xuseen ku soo dhaw. waa maasantahay Xuseen Bariyaada. haye waa maasantahay waana dhawahay. ma sha Allah. Xuseen koob ciyaarihi ka nooga warraya maanta dheelaya. maanta wuxuu ahaa koob special aan ugu talagalnay dhalinyarta nooga yimid reer Sweden oo since 1997 aan u bilownay inaan u tagno ayaa ayagoo yaryar ayaa maanta waxay go'aan gaareen inay noo yimaadaan markayna u qabno ciyaaro international ayaga iyo niman walaalayaal saaxiibo ka timid Northampton, Streatham iyo reer Southall iyo Wembley markayna u sameeyno ciyaaro oo la isku arko oo ma aragtay soconaya wareegta ah إن شاء الله أنا رمينا تيم بلارينو وإن شاء الله السنة والبنا أنا كنا قواحة كلو بنان كأ ويكمل فنلند يكمل دنمارك يكمل نرويج إن شاء الله نيجي مادان مركا إلا سلاح قالوا لي سبورتو ما أعرفي سبورتو بينو دت إسوكينا أيام مهمة وأنكرت كوب كان سنة كانوا مركبينه ويا كوم كيني هرب معها ما يكن واحد وين هاي ما دام هي أول بويس انترناشونال ما دام أول كور واحد قبل جني عيارها مركي مانيان وحيد ويوث وين لكن هو مور لايك وعقا كوبدي أما كراجي أما كرتاير جروبي أنا بحنا أول بويس لكن عيارين كانوا وحوي ويوث وفروم 14 16 19 هي أوبن إيج لكن ما تبعوها مينلي أول بويس عادي عاد waxaan kaloo ku weydiinaynaa koobkaani abaabulkiisa wax sahlan ma ahan in Soomaaliya oo dhan la isugu yeero wixii lejan oo laacibiintii la isugu yeero ka waran arinta maxay kala kulanteen wallahi arintaasi waa runtii waa hawsheeni weeye waxa ka soo shaqeeyay walaalada iyo asxaabta reer Wembley aan isku ururkana isku maamulnahay oo habeen aan wada taaganahay ayaga laantood waxa ma soconayaan marka ayaga laftu waxay kaliya qayb weyn isku yeeridda isku wicida marka hal iyo laba iyo saddex wax ma qabato Soomaaliya waxay ku tiraahdaa gacmo wada jir wax ku qabtaan marka wada jirkeena iyo dadnimadeena iyo sportnimadeena iyo jaceylka aan u qabno sportiga ayay naga tahay inaan ma aragtay dadkaas u yeerno khayr Allah si sarmo farax ayaa maanta la joogay oo noo yimaado every week oo la ciyaaro anaga caadi loo ciyaaro laakiin maadaama uu yiraan maqlina ciyaaro sameynaysan ma ka maqnaanayo marka next time waxaan oo socdo nin kale oo aatana surprise u yiraan la sheegi laakiin meesha aan laga dhaxarko garoobka laga dhaxarko ku dhaxjo waa garta insha Allah waa yahay wax dheer koobkii yaa ku doonsiisay iyo koobkii ma sha Allah maanta waxaan ku badiyay kooxda Sweden oo Stockholm ka timid oo Ilaahay jaanis ku siinay badiyaan koobka laga qaatay waxaan leenahay gool congratulations insha Allah adiko nabada wadankeena taga wali waa u socdaa soo dhaweyntoodii بريتو عندنا waxay leeyihiin barnaamijyo kale oo xad ah marka waxaan rabnaa ayagu happy inay noqdaan insha Allah Wembley maadaama koobkii laga qaaday oo team haray uu reebay waxa dhaliil u soo jeedinaysa see looga qaado Wembley ilaa iyaga home kooda ku dheelaayeen iyo horta ogtay Ingiriis 966 ayaa ugu dambeysay boolkaaga qaadaan waa Ingiriis marka waxa waa ku bar walba way taagan waxa dhafdigood booska Ingiriiska joogaan wala iska badiyaa waana badinaa marka ogow koobabka wadankan Wembley ayaa ugu badan waa taariikhin meel walba ku jirta laakiin hadda hadii laga badiyo wax dhibaato ma leh laakiin in habbinahay inaanu anaga ogol lahayn laga badiyaa we happy dhinaca arbitarayaasha meeqa arbitara ugu tala gasheen maanta anta waxaa joogay saddex arbitara joogay oo runtii ciyaarta fiican u qabtay si wanaagsan oo bilaa buuqa ay ku soo dhamaatay Ilaahay baa mahad leh alxamdulillah waana ku qanceen maamulkoodii ma sha Allah waa gartay marka meeshaan yaa ka salaamaysa tiimamkii yimaado meeshaan wallahi ni horta ku khayr Allah siiyo reer Sweden waxaan leeyahay aad iyo aad baan salaamayaa niman walaalaatiin welcome to London Northampton oo reer Djibouti khayr Allah siiyo Xamud waa nin aad sportiga u jecel waa nin wariye ah waa nin aad iyo aad maartay u dadaala oo markaan u tagna xataa Djibouti oo nagu soo dhaweeya asaga iyo madaxweynihiisa Ismaaciil Umar Geelle waa u mahad celinayaa waxaan kala aad u mahad celinayaa walaalkay mahad iyo tiimka Streatham oo runtii har iyo habeen la garab taagan la ciyaara meel walba aadaan runtii waa dad aad u faraxsan walaalada iyo reer Southall oo hogaaminayo maxay tii sheegay goob iyo fanaanka runtii waa dad aad ayagana aan rabay inaan u mahad celiyo iyo obviously iyo Wembley
magaaladii ah oo magaaladaada aad iyo aad wali cashadeennii baa noo socota wali xafladeena nooma dhammaanin waxaynu leenahay Soomaaliya Wembley waxay u baahan tahay ku dayashay u baahan tahay ilaa 30 sano ayay waxa ka daba taagan tahay marka wali wax bedela lama hayo marka waxa leenahay Soomaaliya waa loo baahan yahay sportska wax walba sportska lagu bedeli karaa dawladdeena Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa sportska inay fiiro gaar ah siiso marka waxaan leenahay Wembley ha guuleyso